madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin madaxweyne uu xilkii kaga qaaday gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Awdal kuna magacaabay mas'uul cusub waxaana u dhigneyd wareegtooyinka madaxweynuhu sida tan ujeedo xilka qaadis ku Muumin Muuse Ducaale gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Awdal og wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo xilka qaadis mudane sida aad la socoto xilka qaranka ay sunnihiisa tahay inuu meerta noqdo oo hadba loo igmado cidii hanan karta sida darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii aad u haysay qaranka waxaan kaaga mahad celinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka ujeedo magacaabid markaan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waaya aragnimadiisa markaan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Maxamed Cali Cabdilaahi Dambiil laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal ee jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtadaasi madaxweyne ku saxeexnaa